بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود ومالينكii labaad ku guda jira ka qaybgalka madasha diblomaasiyadeed ee Antalya ayaa halka ka jeediyay hadal wax ku oola kadibna saxafiyiinta caalamiga ah iyo ka qaybgalayaasha madasha ayaa halka madaxweynaha ku weydiiyay su'aalo ku saabsan xaaladaha dalka iyo mashaariicda laga hirgeliyay iyo waliba la dagaalanka argagixisada haddaba madaxweynaha jumhuuriyadda ayaa ku nuuxnuuxsaday in dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka ay ka go'an tahay ciribtirka argagixisada sidoo kalena wuxuu sheegay in Soomaaliya mashaariic badan oo horumarineed ay ka socoto madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kadib kulan muhiim ah la yeeshay dhigiisa madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka wanaagsan ee labada dal iskaashiga dhaqaale iyo la dagaalanka argagixisada Allah ma hadle